السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan asxaabteeda qaliga hamel walba joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal kooban oo aan kaga hadli doono trade-ka aan maanta qaadanay waxaan qaadanay maanta GJ iyo waxaan qaadanay USD CHF GJ waxaan idinla wadaagay xilli hore hase yeeshee USD CHF ayaa waxaan doonaynaa inaan qaabka aan u taxliilinayno to z inaad isla aragtaan sidoo kale muuqaaladii hore ee markaan trade-ka soo dhigayay inta ugu badan waxaa ku furan xawaare ama inay dhaqsi dhaqaaqayaan hase yeeshee bahda Birlab FX cidna waxba kama qarsato xaqiiqatan suuqani forex anagu iyo idinku iyo guud ahaan waa uu naga badan yahay runtaa waxay tahay wax walbo sidaan hore usoo sheegayba waxay u baahan tahay juhdi in la geliyo suuqani qof oo qof kale ugu axanaya ma jirto trade-ka hadduu ku saxan yahay ha wareegtoba waqti ha qaato maanta oo idil haga fureego akhiiran waa midkii TB-ga waafaqa sidoo kale USD CHF waxaan aaminsanaynay inay maanta aan ka sugayno sell market waayo DXY ayaa weli waxay ku guda jirtaa iska daba wareeg DXY weli clear ma ahan weygani oo waxaad moodaa in weli halkii aan ka rabnay aysan weli gaarin targetka sida ay tahayna suuqa looma sugayo oo haddii aad fursad hesho waa inaad fursadaasi ka faa'iidaysataa shalay anagu trade ma ana qaadan balse maalintii kasii horreysay ayaan laba trade qaadanay maantana oo khamiis ahna waa qaadanay trade suuqu markaad aragto inuu trade uusan kuu muuqan ma la qasbo oo waa laga tagaa maalin kaleeto ka qurux badan ayaa soo baxaysa asxaabta mar walba waxaan dhahaa waxay tahay haddii maalin trade fiican aad weydo oo trade-ka aad qasabto waxaad meesha ku luminaysaa fursad ah maalinta xigta trade fiican inaad qaado weydo taasoo qalqal kugu abuurmaysa taasoo keeni karta inaad akoonkii xitaa aad ka takhalusto asxaabteeda qaaliga ah bahda Birlab FX waxaan hore inla soo wadaaga waxay ahayd bishan October in dhexdeedii aan warbixino idinku soo gudbin doono halka aad nagala soo xiriir kartaan waan soo gudbinay intii dad yow aan u baahnayna ee xadidneed ugu badnaan waa la diiwaan geliyay haatan inta dhiman oo ah in yaroo kooban waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahayno in aad isoo diiwaan gelin doontaan taa markaan halkaas kaga gudubno qof walbo oo anaga naga mid ah waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo dabcan waxaan wada nahanay muslimiin walaalaheena reer Falastiin dhibaatada haysta waad aragtaan qof walba maanta damqasho leh dareen leh gaaladu dhibaatada ku hayso yuhuuda way aragtaa haddaadan awoodin inaad wax ka qabato waxaad awoodaa inaad Allah subxaanahu wa tacaala u baridid oo aad yuhuuda habaartid walaalaha muslimiinta reer Falastiin aad u duceysid sidoo kale waxaa jira dadyow aysan u kala baxsaneen yuhuud iyo nasaaro yahuuda waa cadawga muslimiinta nasaaraduna waa sidoo kale waxba isku kama dooriyaan labaduba waa cadawga muslimiinta runtaa waxay tahay nasaaradu waxay inta badan garab siisaa ama ay la jirsataa waxay tahay yahuuda nasaaradu yaa kamid ah Mareykanka aad arkaysaan Ingiriiska aad arkaysaan iyo inta la soo halmaalado oo reer galbeedka u badan gaaladu waa cadawga muslimiinta inta badan waxaad maqlayseen hay'adda la yiraahdo Human Rights Watch baa jirta saan waaye waa markii xuquuqda baa la dooda may ah xuquuqda waxa la dooda inta ka bixin Ruush markuu Ukraine dagaal ku qaaday waxaad aragtaan in gaalada iyo idil dhan ay barbar ka noqdeen hay'adda qaramada midoobay ee hay'addan xuquuqul insaanka iyo hay'adahan kaleeto uma muuqato miya dhibaatada walaalaha muslimiinta Falastiin loo geysanayo taasi dah kama saarno qaramada midoobay iyo wixii lamid ah waa dadkaas aad arkaysaan yahuudda iyo nasaarada iyaga ayaa meesha ku aasaastay oo waxa iyaga rabaan ayay ka sameysanayaan waxa iyaga aysan doonayna ma dhacayaan marka mar walba waxaad ogaataa ciribta dambe muslimiinta ayaa iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa walaalaheena muslimiinta ee dhibaatada haysata inuu ilaahay ka dulqaado قال إيه قال لا شربه إنه إلهي عقابه
بإذن الله الكريم ما له النصر يوضن بيا إن شاء الله. طبعا markaan halkaas ugu soo gudbo walaalahayna muslimiinta oo dhibaatadaasi lagu hayo oo mar walba duqeynta dabaabaad iyo diyaarado lagu soo wareejinayo Israa'iil si Gaza dhulka ku darto laakiin taasi Ilaahay ma uusan dhihin galada Allah jabiyo taa marka halka ugu gudbo asxaabta qaaliga ah meel walba joogtaan bahda bir laba fix waxay inta badan asxaabta ay ugu tala gashay waxa weeyaan in dadka ku xiran ama asxaabta ama saaxiibada ku xiran inay maan ahaan u dhisto markaan la yaamaan ahaan waxay tahay suuqani haddaadan maskaxiyan aan dareen ahaan aadan joogin waxaad ogaataa haddii xitaa aan nidaam baratid ama istiraatiijiyad baratid inaad ku qalqalayso qofka beeska waa inuu iska soo dhisaa kadib asigoo diyaarsan waa inuu halkaan imaadaa si ay ugu sahlanaato inuu biri la qabsado kanaladani iyo shaxda halkaan ka socda subaxii waa soo toostaa waxaa tahay nin shaqo u socda isku day inaad position leedahay isku day waa inaad meel gooni aad ku trade galaysa aad leedahay subaxii waxa ma dhaantid ninka maanta xafiiska ama meesha shaqaalaha aadaya ama xafiis dowlad ha aado ama xafiis shakhsiyad ha aado adiguna meel gooni aad soo aadaysaa oo maanta cidna aysan kugu maamuleynin cidna aysan waxba kugu dheheenin bari waa jamco inta badan dadyoogii targetkoodii gaaray waxaan la yahanbalayo intii weli aan targetkoodii gaarinna insha Allah wadada aad ku soo jirtaan dadaalkiina dadaal kale si dul saara qofkii filaya marka in jaranjarada guusha noloshu ay tahay dugsi hoose dhexe sare jaamacad badge masters PhD kadib in la guulaysan doono haddii fikirku sida uu ahaa markii hore waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada in fikirka wax laga bedelo guushuna kuma xirna shahaadooyin la qaato waxaad guulaysan kartaa adoona shahaado qaadan waxa loo baahan yahay uu tahay qofka inuu xirfad leeyahay xirfaduna aynan ku xirnayn qofka 4 sano inuu meel ku xirnaado oo la yiraahdo waxbaad baranaysaa 4 bilood baa 4 sano ka khayr badnaan karta 6 bilood buu ku baran karaa iskiilku marka waa muhiim qofkii filaya marka in jaranjarada guusha noloshu ay tahay dugsi hoose dhexe sare jaamacad badge masters PhD kadib in la guulaysan doono haddii fikirku sida uu ahaa markii hore waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada qofkii filaya marka in jaranjarada guusha noloshu ay tahay dugsi hoose dhexe sare jaamacad badge masters PhD kadib in la guulaysan doono haddii fikirku sida uu ahaa markii hore waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada in fikirka wax laga bedelo guushuna kuma xirna shahaadooyin la qaato waxaad guulaysan kartaa adoona shahaado qaadan waxa loo baahan yahay uu tahay qofka inuu xirfad leeyahay xirfaduna ay